taliye ku-xigeenkii ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Aadan Samatar ayaa xalay Muqdisho u geeriyooday xanuun in mudahayay. Generaalka ayaa la sheegay in muddooyinkii dambe uu la xanuunsanayay xanuun dhanka beerka ah oo intuu sadhiman loo qaaday wadamo badan si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto, balse ma suurtagelin xalay ayuuna Muqdisho ku geeriyooday. Generaalka ayaa waxay wada dhasheen fanaanka Xasan Aadan Samatar, wuxuuna sidoo kale hayay generaalka ka sokow taliye ku-xigeenka ciidanka cirka xilka madaxasaadka ciidanka cirka. مسؤولين كترسان دولة دحي وكمid yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa wuxuu ka tacsiyeeyay geeridii ku timid taliye ku-xigeenka ciidanka cirka oo xalay Muqdisho ku geeriyooday, wuxuuna alle uga baryay in naxariistii janno ka waraabiyo. Generaal Maxamed Sheekh Cali Dable Beelood oo ah taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Kulmiye waxa uu ehelka generaalka iyo ciidanka cirka uga tacsiyeeyay geeridii ku timid taliye ku-xigeenka ciidanka cirka. Sidoo kale Generaal Maxamed Sheekh Cali ayaa wuxuu ka sheekeeyay taariikhdii uu ka yaqaanay Generaal Maxamed Aadan Samatar oo Muqdisho ku geeriyooday xalay. Generaal Maxamed Aadan Samatar Allah u naxariisto wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka cirka aawu fi bakhrikii uu geeriyooday, laakiin muddo hadda aad buu jiraa waayaan. hadda waxaan taxsiin uga darayaa dhammaan saraakiil xigeenka alifleedii dawladda ciidanka cirka iyo dhammaan reer Aadan Samatar iyo aqraabadoo dhan ayaa leeyahay sabir iyo iimaan Allah naga siiyo, kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo, jannadii Allah ka waraabiyo, anagana gadaashiisa Ilaahay naga fidnayo. wallahi jiraan baa haysay oo xagga beerka ah oo Hindiya la geeyay la soo celiyay intaas oo jiradaan aniga waxdaba ku-xigeenkayga ahaa aad iskugu dhaweyn markii Hindiya laga soo celiyo dhaqaatiirta xamar la keenay waa ii sheegeen oo waxay yiraahdeen ninkan adigu ha u sheegin, laakiin xaaladiisa naftiisa tanada waa simatahay, laakiin ma rajadiisa ma fiicna. waxaan ku walaynay waxaan ku fikiraynay inaan haddana bal Turkiya keenno warka waxay yiraahdeen meel ka soo geysay waxba laga soo qaban maayo. Turkiya baa loo diray waxyaalahan iska lagu soo sameeyay ayaguna jawaabtii soo celiyeen, marka tiisuu sugayay waqtigiina maanta caawa dhamaaday. wallahi ninkan wuxuu ahaa dadkii adigu 8-aadkii dhamaadkeedii ku soo biiray ciidanka oo Leyla sargaal ka soo noqday Ciraaq ku soo bartay. sargaal wuxuu ahaa aad iyo aad dhinaca logistikada saadka aad iyo aad uga shaqayn jiray. haddana wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka iyo madaxa saadka labadaba waa isku hayay. saraakiisha muddo dheer soo shaqaynaysay waa aad iyo aad u firfircoonaa. kullayba annaga waa tabaynaa anigoo taliye ahaa iyo saraakiisha kale iyo familkiisa intaba waa tabaynaa. waxaa saaka lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu sameeyo generaalka aas qaran oo ay ka soo qayb gali doonaan madax ka tirsan dowladda dhexe, saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale.